السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan rabaa mawduuc yar oo aad moodo inuu dhammaanteen ina saameeyo amba inteena badan ina saameeyo ugu yaraan qof kasta oo mar uu saameeyo inaan ka hadlo kaasoo ah inayn isbarbar dhigno dadka kale oo tiraahdo heblayo waxaasay qabsatay, hebel waxaasuu qabsaday, hebel guushaasuu gaaray, hebel sidan uu sameeyey, kan kale sidan uu sameeyey, oo dabeetana aad uu qofku dareemo inuu mataqaanaa qeyrkii ka hadhay oo kale, amba inuu qofku wixii uu qabsan lahaa aanu qabsan, amba qofku meeshii uu gaari lahaa inaanu gaadhin, isagoo ka qiyaas qaadanaya dadka kale ku xeeran, ambaba isaga dadka ka baxsan ay barbar dhigaan dad kale oo mataqaanaa aan leedha waxaasa la qabsay waxa maxaad u gaari weyn. qofku taasi waxay ku keenaysaa ugu yaraan inuu majarihii noloshiisa uu ku socotay intuu bedelo uu mid kala qaato. tusaale ahaan qofku hadduu doonaya inuu waxbarto oo sanadada soo socda uu noloshiisa naftiisa noloshiisa uu maalgelin ku sameeyo waxbarto, waxaa laga yaabaa inay qofka ku dhalato mayaan iska shaqo tago oo dabeetana uu qofki shaqo raadiyo, shaqo aanu habi ku ahayn amba aanu dooneyn, ama meesha uu socday hayn uu muddo ka shaqeeyo, dabeetana lacagtii wixii sameeyo wixii iibsado, kadibna dhowr sano kadib ay isaga mas-uuliyadi korto, mas-uuliyaddii nolosha ku ballaarato, qofka noloshiisa isbedesho, energy waxbarashada u haya isbedesho, dabeetana uu is arko qofka asagoo meel aanu rabin taagan si aanu rabinna u nool. marka laga yimaado qadarka ilaahay oo qof kasta meeshu ilaahay u qadaray buu tegaya, taas waa iska caddahay. laakiin sababaha keenaya qofku inaanu dadku isbarbar dhigaya amba qofna qofka kale aanu meel la gaadhin waxa weeyaan, qof kasta wuxuu leeyahay waayo u gaara, wuxuu leeyahay wax noloshiisa saameeyo u gaara, jaanisku doonaha haysta markuu yaraa amba markuu weynaado, laakiin waxaa jira qof naftiisa waxyaabo ku dhex jira oo aan muuqanin, oo aana isha qofka kale arki karahayn, oo saameynayo go-aan qaadashadiisa, meeshuu tegayo, waxa uu sameynayo, halka uu tegayo iyo waxa uu qabsanayaba. waxaa jira qofka challenges noloshiisa soo wajaha oo isaga u gaara. waxaa laga yaabaa qofkani intuu qofkan kale oo isbarbar dhigaya waxaa sameynayay inuu qofkani ku jiray dagaalo aan la arki karahayn, inuu ku jiro marxalado naftiisa iyo noloshiisa uu kala dabaalanayo meel adag oo xilliga nolosha rabay inuu soo gaaro. laga yaaba qofkani inuu weli soo dabaalanayo inuu xilligii nolosha soo gaadhay. waxaa laga yaabaa qofkani aad isbarbar dhigayso inay guulihiisa hadda isku wada daba dhacsan yihiin, laakiin laga yaabo isaga laftigiisa challengeska inuu nolosha gadaal kala kulmo. saa darteed ay qof ku qaatay inuu 20 sano isagoo guul gaadho la taaban karo, mid 30, mid 40, mid 50, mid 60, mid 70, kaasoo keenaysa qof kastaba waayihiisa noloshiisa markuu dabaasho ordo gaadho meeshuu la doonayay amba isagu uu rabay ee guusha ka gaari karayay. marka waxyaabaha sababaha aanay ahayn inaad qofna naftaada u barbar dhigto way fara badan yihiin, laakiin kow waxaa ka mid ah haddii aad qof isbarbar dhigto mar walba amba dadka kale isbarbar dhigto, ma gaadhaysid meesha aad doonayso, weligeedii aad lahayd inaf ma noqonayso. waayo markaad wax sameyso wax kala dhacaya, markaad wax sameyso wax kala dhacaya, dabeetana si aad u oryanayso mataqaanaa hadba shay kale ay noloshaada farxadda iyo deganaanshiyaha iyo nafisku intaba ka tegaya. waxaa dhici karta inaad isbarbar dhigto wax fake ah oo noloshan maanta aynu ku noolahay social mediaha, qof kasta waxa uu soo bandhigayaa sawirka ugu qurux badan oo iska qaaday, fiideoga ugu fiican oo iska duubay, meesha ugu qurux badan uu istaagay, cuntada ugu qurux badan uu cunay, oo mataqaanaa 99% noloshiisa ma arkan, oo 1% baa arkaysa la qaabeeyey oo la design gareeyey oo la filter gareeyey oo loogu talagalay adduunka in la tuso amba dadka la tuso amba asxaabta la tuso, xataa familka mataqaanaa social media kugu jira aad la wadaagaysa ka ugu qurux badan waxaa markaa sameysaan baad qabatay amba aad cuntay amba cidda aad la kulantay. laakiin haddii markaa qofku isbarbar dhigo 1% kaa la design gareeyey, 99% kii qofkana aanu arkahayn, yacni ma gaadhaysid. waay waa dhalanteedna lama gaadho, waad eryanaysaa adigana enerjigaaga iyo jihadii noloshaada way kaa lumaysaa, wixiina ma gaadhaysid. waxaa kaloo dhici karta qofka inay jihadu ka lunto, inuu goolku ka lumo, inuu meesha u socdaa ka lunto, inuu wuxuu doonayaa ka lunto, inuu ilmihiisa wuxuu u sheegayaa ka lunto, inuu saaxiibadii dadka waxa uu kula talinaya ka lunto. waayo naftiisa oo dhan wuxuu ku jiraa majara habaab. wuxuu doonaya inuu qofkaa gaadho, wuxuu doonaya inuu hebel wuxuu sameeyey sameeyo, wuxuu doonaya siduu u sameeyey inuu sameeyo, wuxuu doonaya siduu usoo caanbaxay inuu soo caanbaxo. qofkaasi xeelado gaara iyo xaalado gaara iyo nolol gaara iyo majaro gaara iyo waxyaabo aan adiga ku saameynin oo aanad ku noolin oo aanad ku noolaan karin ayuu ku noolaaday. ma arki kartid, ma dareemi kartid, because waayo qof kasta noloshiisu waxay ku socotaa lane gaara, wadada macnaha way kala xariiqanta wadada nolosha.
qof kastaba imtixaan gaar u maraya, nolol gaar ku socdaa, nimco gaar u helaya, dhibaato gaar ku dhacaysa, xanuun gaar ay wataa. marka adigoo bidix u socdo midigka haddaad ka laabto oo deetana doonto inaad wadada bidixteegasa kusoo dhacdo, ila qofkii kala bidixteeg kuma soo dhacaysid. saa darteed qofka waxa ku dhacaya majara habaab nolosha oo dhan ah, kaasoo keenaya inay kalsoonidu ka lunto oo isku arkayno wixii gaari karahayn, inay farxadu ka lunto, inuu qof fake ah u ekaado, inuu qof mataqaana aan legacy ka tegin uu noqdo oo wax isaga u gaaro helo hindisay mataqaana aanu ka tegin. saa darteed isku soo duubo qofku inuu dadka kale isbarbar dhigo, amba uu mataqaana waxa laga yaaba qofkaas inuu ku jiro seasonkii amba waqtigii isagu uu mataqaana flowerada u baxeen, adiguna aad ku jirto waqtigii aanu wali roobka kuu da-in. ya marka isma barbardhigi kartid. haddaad la sugto markuu roobka kuu da waxa laga yaaba isaguna inuu jiilaal galo. saa darteed isku soo duuba nolosha suurtagal maaha qof kale intaad naftaada barbar dhigto inaad tiraa qofkaas siduu yeelaman yeeli, laakiintiise laba arrimood ku khasbantay baa jirta. midda koowaad inaad qofka aad inspiration kuu noqdo, ood mataqaanaa aad qofku wuxuu gaadhay, meeshuu gaadhay, sidii u gaadhay aad ku dayato, tirahda aniguna waan gaari karaa, aniguna waan sameyn karaa, waa taa la sameeyey, waa taa dhacday, sideen u gaadha ee aniga ii gaara ee wadadayda iyo gaarigayga yara saaranahay ee nolosha aniga ii gaarka sidii halka u gaadhaysaa. ta labaad, shaqada ugu weyne kuu taala waxa weeyaan shalay halkii aad joogtay inaanad maanta joogin. waxaa laga yaabaa dadka dibadda kaa eegaya inay ku arkaan 10kii sano lasoo dhaafay aad meel u taagan tahay, ama 20kii sano lasoo dhaafay waxba ku dhaqaaqin, laakiin adigu aad og tahay arrimo waaweyn iyo dagaalo adiga kuu gaara inaad kasoo gudubtay. marka shalay meeshii aad joogta haddaad hore uga socoto, sanadkii hore meeshii aad joogta haddaad sanadkan hore uga socoto, waad guulaysatay, guushii adduunyana waad gaadhay. guusha muhiimadana waa ta aakhiro. marka ilaahay kuwa aakhiro guulaysta ee mataqaana ilaahay u nimceeyo insha allah ilaahay naga dhigo. asalaamu calaykum.